السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وين سلامي إذلكين أصحابتو ميل كستا جوجتان وولاشين سينا جنالكا داوانيسانا وسينا وفشيال barnaamijkan waxaan kaga hadli doonaa 8 shaqo ee adduunka ugu la yaabka badan. Shaqada koowaad ee ugu la yaabka badan ayaa ah wadanka Japan. Waxaa jira dad shaqo ahaan uga faa'iideysta in qof daahsan ama aan awoodin taagnaanta loo galo saf dheer oo uu ku sugayo adeeg. Mushaharka ay qaataan dadkaas wuxuu ku xiran yahay hadba inta uu la eg yahay safka iyo waqtiga ay sugayaan. Shaqada labaad ee la yaabka leh ayaa ah hawshan waa in la kala aqoonsado digaaga yaryar in ay lab yihiin ama in ay dhadig yihiin. Dalka Ingiriiska, shirkad ku taala ayaa sanadkii la soo dhaafay shaacisay in ay yaraadeen dadka khibraddaas leh ee shaqadan soo raadsada, iyada oo xitaa sanad walba qofku ku siinayo lacag dhan 4,000 oo geni. Dadka doonaya shaqadan waa in ay haystaan shahaado muujinaysa in ay qaateen tababar 3 sano ah oo la xiriirta kala garashada jinsiyadda digaaga. Shaqada kale oo la yaabka leh ayaa ah waxaa laga rabaa inaad qof kilkiladiisa sanka saarto si aad u xaqiijiso tayada carafta barafuunka kilkilaha ama noocyada kaleba. Haddii aad shaqadan qabato, waxaad tijaabinaysaa barafuuno kala duwan. Ogowna, shirkadda soo warshadeynaysa barafuunka ayaa siinaysa talooyin ku saabsan in wax laga beddelo iyo in kale. Shaqada afraad ee la yaabka leh ayaa ah wadanka Iiraan ayaa laga hirgeliyay sharci loogu yareynayo saaxadda gawaarida kaasoo baabuurta maalmo u kala sameynaya in ay magaalada aadaan. Dadka gawaarida leh ayaa durbadiiba bilaabay inay shaqaaleysiiyaan dad u qariya taarigada markii ay joogaan goobaha ay ku xiran tahay kaamirada CCTV si aan loo arkin xilliga ay sharciga jebinayaan. Shaqada shanaad ee la yaabka leh ayaa iyaduna ah magaalada Tokyo dhexdeeda. Haddii aad tagto, waxaad ku arkaysaa saaxiibo badan oo kala duwan oo isla socda oo dadka qaar markii ay arkaan ay u maleynayaan in ay yihiin saaxiibo dhab ah. Balse Tokyo ma ahan sidaas. Arrinta la yaabka leh ee ka jirta ayaa ah inaad ku dhex arkayso lamaane jacayl dhab ah wada jilaya, misena ay tahay mid kira jacaylkaasi. Haddii aad lacag haysato, waxaa kuu fudud amaseba aad heli kadhaa shaqsi kula sameeya jacayl dhab ah. Shaqadan waa mid la yaab leh, balse way ka sii xoogaysanaysaa magaalada Tokyo. Wadanka Japan wuxuu ka mid yahay dalalka shacabkiisa ugu mashquulka badan yihiin, waana in la xaqiijiyo si uu qof walba goobtiisa shaqada ugu tagi lahaa xilliga habboon. Maadaama ay dad aad u badan socdaan, dowladdu waxa ay shaqaaleysiisay dad xirfad u leh in ay shacabka lugeynaya ku riixaan tareenka si aanu qofna uga daahin shaqadiisa. Mararka qaar waxay riixayaan dad ka labanlaabaya in ay tareenka raacaan haddii ay u maleeyaan in uu buuxo. Dadka shaqadaas ku jira waa in ay xirtaan dhar cadcad iyo galoofisyo gacmaha la gashto. Saacadaha ay shaqaynayaan waa aroorta hore iyo fiidkii. Shaqada toddobaad ee la yaabka leh, shirkadda soo farsamaysa warqadaha ama tiijka lagu isticmaalo musqulaha waxay xaqiijinayaan in aysan soo urin ka hor iyo kadib marka la isticmaalo inta aan suuqa la soo gelinin.
Warshadda gudaheeda waxaa ka shaqeeya dad ay hawshoodu tahay in ay urursadaan isla marka la sameeyo iyo marka la isticmaalo kadib. Dadka loo qabto shaqooyinkan waxay u baahan yihiin talo ku aaddan in ay waraaqaha ay samaynayaan ay noqdaan kuwo aysan carafdoodu isbeddelin markii la isticmaalo iyo inta aan la isticmaalin ka hor. Shaqada sideedaad ee u dambeysa oo ah mid aad u layaab badan ayaa ah waxaa lagaa rabaa in aad u oydid qof dhintay oo aadan aqoon. Waxaa lagaa rabaa in aad ilin badan u daadisid qofkaas adiga oo aad u qaylinaya. Inkastoo ay u muuqato shaqo layaab leh, haddana waxay la mid tahay shaqooyinka kale. Dhalinyaro badan ayaa shaqadan nolol maalmeedkooda uga soo saara wadamo ay ka mid yihiin Kenya iyo Nigeria. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka. Aad ayaad u mahadsantihiin asxaabta nala joogtay. Inta nagu soo biirtayna oo nagu cusub waxaan leeyahay soo dhawaada. Fadlan haddii aad fiidiyowgan ka heshay like garee siina share garee. Aad ayaad u mahadsantihiin.